anagoo xeer ku dhex yaallo uma aragnay labada gole dhexdiisa oo kartoon ku jiro ayuumaan aragnay waxaanu fahanay bartaanu ka fahanay in shir guddoonkayaga soo tuuray waa xogayntii baa tiri ma qabanayno arrinta dalka lagu ogaana ma ahayn muddo dheerna wuu ka jirtay golahayaga arrintan waxaan oo kale waanu ka xishoonayna inaanu nidhaahno laakiin arrimahan oo kale waa qalad waa la khiyaamooyin qaran oo dalka laga geliyo waxaana ummadduna way arkaysaa arrintan khiyaamo qaran weeyaan high treason weeyaan anigu taanu arko kowli dee markaa dalku waxay noqonaysaa dee maxaan filaya dal in xoog lagu kala adkaaday noqonaysaa malaha shuruucdii iyo haddii dimuqraadiyaddii ma shaqaynayso xildhibaan xeerka ninka golihii shir guddoonkiina u celiyey golihii wakiilada shir guddoonkoodana u diiday maxaa xiga talaabada xigtaa maxay tahay dee mama garanaynaba idinkaa garanaya bal sheega habkana ma fahmaynaba xildhibaanadiina golaha guurtida tallaabada xigtaad qaadaysaan haddii shir guddoonkiini xeerkiina soo hordhigi waayey uu celiyey isagoo idinkala tashan maxay tahay tallaabada xildhibaanada golaha guurtida aad ka mid tahay aad qaadaysaan ma garanayna anagu waxaan qaadayno waan dib baa loo tashanaya mabaanu ogeynba